xamse haddii uu inantaa waayey dhibtii jacaylkaa ka soo martay waxaan filayaa inaanu wax dambe qalbigiisa jacaylku mar dambe ku soo noqon doono saliyada inta ugu badan waxa lagu xidhaa inaad wax dhacday iyo inaad wax aad laakiin anu kaliya wax lagu xidhay jacayl isaga jacaylka ka tambadiyo wuxuu ku helay caruurnimo dhaqaale la'aan maxay ahayd tooyeen ardaynimo maskaxdiisu jacaylkii ugu horeeyo ku soo boodo ku noqdayo dabadeedna qufushay kadinka albaabkooda ayuun buu iska seexan jiray subax markay toosaan ama qofka u horeeya kaamboolka toosa ayuun baa arki jiray inankii halkan hurda wax badan ayaan u soo taagnaa rafaadka xamse ka maray jacaylkooda isaga waxa isu raacay caruurnimo ardaynimo jacayl ka tambatay iyo waliba lacag la'aan sidaas waxa tiri khadradho oo iyadu wax badan u soo taagneed qisada xamse isla markaasina door weyn ka ciyaartay in xamse marar badan ay ka soo qaado isla markaasina gaarigeeda ay ku soo qaado isagoo hor seexday ama hor joogaba guriga ay magaalada Hargeysa ka deganeed hoodo de maxamed horta hadaynu isnidhaa sheekada caawa ka sheekeeya barnaamijkan iyo barnaamij kale midna kuma dhamaanayso taxana muddo dheer socdayoo dee sidii musalsalka marba qaybi iska soo daba dhacaysay ayuu ahaa waxaan ka mid ahay waa runtaayoo dadkii ugu xogagaalsanaa ee dhacdadan ugu dhowaa waayo de marka guri ahaan masaafo ahaan loo eego afar ama saddex guri baa noo dhexeeya ilmahan yara dhibaatadana ku dhacday iyo aniga gurigeega habeenada qaar hooyadii saddexda habeennimo waan u kacay iyadoo isaga deydaysa oo dhibaato badan sheeganaysa oo catowsan oo hantii ay dee ku raacdo gaari aan haysaninoo bas soconin xilligaasoo aan hodan helis buu joogay wakhtigaasoo inantu deganayd aan joogin haysaninoo bas haysan ayay habeen saddexdii habeennimay toosisay dabadeedna weliba waan yara xanuunsanayo waan ku xanaaqay waxaan idhi ma kici karayaan ninkan waalaneed wadatay ordayo uun ee 4 saacad le u cararayoon dee anagu ma qof bini aadan cararaya miyaa la qabtaa dee xoolal cararayaa la qabtaa ma qaban karayna dee anagu dabadeedna aduu xaaladdu waxay igu noqotay maxamedow lagama kacaan dee qof weynoo waayeeloo kaa dul ooyaya dee ma seexan karid soo damiirkaasi ma ku siinayo waan kacay waan israacnay gaarigii baan istaadhay hodan hilis baan u tagnay waxaan u tagnay inankanoo aqal ku xidhanoo dusha kaga quflan aqal ku xidhan oo dusha kaga xidhan markaanu ilaa saacad wax dhiman sugaynay eenu furii weynay eenu wax gurigii naga furo weynay dee ila albaab xidhan kulama hadlayo waxaa la yidhi inantii baa xidhay hoodaa xidhay baana lagu yidhi oo guriga ku xidhay marka annaga waxaana loogu sheegay markaa inuu dilayay oo hubsito oo waxuu isticmaalayo oo dadna toori iyo wax noocaasa ayuu istaabana lagu yidhi marka hadda markuu hubkaa sito cabsi bay ugu xidhay gurigan markaa idinkay idinla sugaysa intaa soo socotaan inantiina waanu weynay aduu markaanu ilaa half an hour sugaynay ayay inantii oo gaari ciidana wadato oo saldhigga macalin haaroon ka tirsan ayaa noo yimi dabadeedna annagii askartii muran badan baa halkii naga dhex dhacay de waxaanu dhihi inankii aynu qolkii ugu galno oo gurigu ku xidhay aynu ugu galno aynu baadhno marka hadduu hubsito dee already waa dambiile aynu ku xidhno haddaanu se hubsidan dee qofkii waa qof gurigoodii soo booqdo dee inantuna inaabtidii bayd waanu u gallay inankii waanu baadhnay wax huba ma sidan waa laga waayey wax huba sidii baan ciidankiina iskaga tegey inankiina laygu soo raaciyey wakhtigaa waxaan xasuustaa gaariga daaqadahaad bilaadanku ka fuula 4 daaqado mid ka mida ayuu bilaadanku ka fuula inankaa waxaan sidii daaqadu iska tuuri doonaa gaariga xagga dambe ee dee dambe ee spare barkii waxa gaariga iyo taayiradiisa wixii lagu gurto ayaan ka furo halkaasaan gaariga wallahi ku xidhay waan xidhay markaa gaariga waan ku xidhay aan ka qabo inuu ka baxsado gaarigoo soconaya oo uu dee ka cararo ayaan xagga dambe gaariga ku xidhay sidii baan maalintaa guriga ku keenay khadray ma habeenkaas baad soo qaaday mise waxa jira habeenno kale oo halka ka soo qaaday habeenadan qaaday haddaan tiriyo barnaamijkaaga oo dhan anaa ka badan marka waxaan qaaday gurigaasuu ama hortegi jiray ama dee halkii loogu tilmaamo ama jaamacadda ama guriga xitaa maalin dhakhtar inantu tagtay oo ay inan geysay dhakhtarka dushiisii ayuu tegey
dabadeedna halkaasay ka soo qaylisay tiri dhakhtarkii noo hortaagayay waan tegey waan cararay dhakhtarkii baan ugu tagnay inankiiyo inantii oo qaylinaysa hooyadiiyo dee qaylinaysa le inankii uu tego inantiina way cabanaysaa hooyadiina qof aad u aad naceb oo waxay ahayd doonaysa inaan inankaasi dhib geysan waan cararay waxaan u tagnay inankii iyo inantiioo kaabad dhakhtarku leeyahay iska fadhiya oo wax balaaye aanay jirin maalintaana waan soo qaaday maalin waxaan u malaynayaa maalintaa inay isku xanaaqeen inankii inantu dabadeedna waxbuu ku dhuftay markuu wax ku dhuftay ayay dabadeedna inantii dhacday sidii dadkan suuxo oo kale ayay u dhacday waanu la cararnay dhakhtarkan weyne isbitaalkan Hargeysa Group Hospital ayaanu geynay inankii inanta isaga wax ku dhuftay ogo maxamedow haddana isaga wax ku dhuftay inantiina dee dhakhtar bay taallaa la baaraya ogowo inankii haddana inantii weli warkeedu rabaayo uuna waraysanaya markuu qof dibadda uga soo baxay wuxuu leeyahay siday tahay maxay qabtaa ma nabar baa ku yaala inay fiicnaato ma rajaynaysaan anu tani waalanba waqtigaa waarkayeyo waxaan isleeyahay qofkan inantu wax ku dhuftay haddana muxuu ka waraysanaya haddana dul taagan muxuu ka waraysanaya aduu alxamdulilah inantii wax dhibi ma gaadhin wax yar markaanu iska joognay xanaaquun bay ahayd inantii way kacday iyadiina waan soo qaadnay labadoodiiba isnaga waan iskaga tagnoo dee lugee baanu nidhi inantiina waan soo qaadnoo gurigaanu keena bal dhacdooyinkii kuugu cajiibsanaa ama kuugu la yaabka badnaa ee khadraay inta aad xamse ka soo qaadisay inanta gurigood horteeda ama goobaha kaleba ee adigu aad la kulanto habeenkii igu la yaabka badnaa inaan kaa soo qaado waxay ahayd habeenkuu darbi jiifta ku biiruu iskaba seexday cidla habeen qura horta cidla muu seexan inankaasi siduu u soconayo buu daalaa bartii uu damiirku markaa ku daalo uu waqtigu ku dhammaysto ayuu seexdaa maadaamuu dee qof aan cunto cunin hooyan dhaxamaa ka seexan daranyaysan xoog u dhibaataysan yahay isagu halkii waqtigu daalku kaga goosto ayuunbuu seexdaa darbi ha noqoto saldhigga dhexe dhinaciisa in badan buu seexanayay oo askartuna iska baratayoo markuu soo daalo ammaan ahaan buu bidi jiray deedna wuu iska barbar seexan jiray habeen bay islaantu salaadii subax markii waxoogaa laga joogay noo timi deedna waxay tihi inankii xalay maan arag dhaxanta Hargeysa ka dhacaysay waxay ahayd waqtiga ugu dhaxanta badan ee haddaynu busto kasta huwanno aynaan dhaxanta adkaysan karin wallaahi waan hurday waan jiifay markaa ay hadlaysayoo markiiba qalbigaygu wuxuu soo celiyey ma wixii xalay dhacayay ee adigoo guri ku jira oo busto huwan oo macnaw dee intaasoo dhan iska adkeeyey dhaxanta ayuu isagu bannaan u seexday bannaan ba ha seexdee soo bannaankiiba nabad kuma hurdo dibjir baa u timi waa la qariibsaday waa la isu qabtay waa la dilay kabii baa lagala baxay oo jaakeedkii baa lagala baxay oo moobilkii baa lagala qaaday inankii oo waxaan u malaynaya inuu surwaal iyo garan ka lixna macal shaarkii baa lagala baxay ta dhacaysana dee waa aniga kuu sheegaya waxaa dan kama laha bartii intaaba lagagala baxay buu dib u seexday ma kaa tagaan unbuu daysiro iyagii unbaa ka tegayay agagaarkeeda muu tegi jirine markay gabalku dhaco ay dee goor damba noqoto ee albaabada la xidho wuxuu ahaa gurigay deganaayen qaab ahaan wuxuu ahaa kaamboollo isku xidhan kaamboolkaa isku xidhan waashmaan baa ilaalin jiray markuu waashmaanku diido inuu galo uu dee albaabka macna uu ka gudbo dhinacan yaree bahalkunbuu iska seexan jiray dhinacan dee gidaarka albaabkiisa ilaan albaabkii waa laga taagan yahay waqtiyada jaaniska uu waashmaanku maqan yahay uu ka faa'iidaysto ee uu gudaha u galana markuu reerka dee cabaar la jooga ee la yidhaahdo dee orda hurdo tag ay albaabka soo xidhaan kadinka albaabkooda ayuunbuu iska seexan jiray subax markay toosaan ama qofka u horreeya kaamboolkaa toosa ayuunbaa arki jiray inankiyo halkan hurdaa gurigooda hortiisa inankaasi waxanoo dhiba ee dil leh ee dagaal leh ee canaan leh ee wax sheeg leh ee waana leh wuxuu u samaynayaa un isagu waxaasiba way ka maqayn inagu aynu hadlaynahay inantaa rabitaankeedunbaa qasbaya oo jiidaya oo halkan geynaya idinku maadaama adu waad faamiliga caawinisay si dhowna sheekaysa la socday marna ma islaahdeen inanku waa maskaxda oo bal xaalad caafimaad kale ku dayday waan geeyey in Sheekh Ismaaciil baan geeyo kuyu dheer loo galo maxamed Sheekh Ismaaciil inanka waxaan geynay maxamed Sheekh Ismaaciil quraan iyo cashar iyo taxliil iyo dawooyin baa la siiyey
waxba kama tarin waanu ka qaadnay oo waxaanu geynay isbitaalka guud waxaanu ka baadhnay dhimirka waxba kama qabaa layidhi 2 habeen iyo 2 maalmood buu ku xidhnaa waxba ma qabaa layidhi laakiin waxa haddana loogu xidhay dee cabsi oo ammaan waa tanuu dee ammaan la sheegayo 2 habeen iyo 2 maalmood markuu xidhnaa buu ka soo dhacay khadray bal inanta ma istaqaaneen inantan xamse jecla idinku aqoon masuuliye aqoon fiican oo sida xamse yare oo kala ah isumaanaan lahayn oo inantu reerka mar dambe gadaal kaga soo biirtay laakiin dee aqoon muuqaal ahaan iyo waji ahaan waanu isu lahayn oo dee 2 reer oo jaaraan dee xaaladani markay dhacaysana qofkii dadka uu ka caansanaanayaayo dee wuxuu noqonayaa qof si gaara loo ataago la garanayo oo dee waa inantiina ku rabay oo kala ah marka markay hortayada marayso oo kale wax wada sheekaysiya lamaanaan samayn laakiin dee waanu cunan jirnay dee iska dumarka hadalkooda waa inantiina ku jeclahay uu eryanayay baanu odhan jirnay xamse waxyaabaha isku darmay waxay ahayd inaanu horta qof dee caqliyan isu qaban karaa ahayn oo dee ninka raggii wax kasta oo qofka dumari ay si kasta ay u maagto u canaanato inuu buu dhiig iyo us yeelanayaayo dee damiir ahaan buu u diidaya oo waxaan xumaanta badan u diidaya isaga jacaylka ka tambadiyo wuxuu ku helay caruurnimo dhaqaale la'aan maxay ahayd tooyeen dee ardaynimo maskaxdiisoo dee jacaylkii ugu horreeyo kusoo boodo ku noqdayo dabadeedna qufushay ayuu dee ku helay waxaan xasuustaa maalmihii xamse markii hore keligii baa la xidhi jiray maalintii dambe waxaa la xidhay xamse iyo aabihii iyo hooyadii oo dhamala reerkii oo wada socdaba ayaa la xidhay qisada lagu xidhay waxay ahayd xamse inantii gaari ay leedahay oo yaroo wintana ayuu ka haystay gaarigii wuxuu ku dhuftay gaari iyo barigii galbeed leeyahy shirkadahan socdaalku leeyahy ayuu ku dhuftay inankii gaarigu reerkii dhinac buu ka qabsaday inantii iyo gaarigiina dhinac bay ka qabsadeen reerkiina xaaladaasoo dhan waxay iskaga furfuraan iskaba daayey bal dee taxiba ma haystaanba nolol maalmeedkoodaba 2 qoloo kiraabay ku jiraan hooyadii waxay la daala dhacdaa isagiiyo walaalihii noloshii ay ku kafayn leyd xamse waxaan arkay in la xidhay reerkii dee jaarkii oo dhan baa gurmaday waxaa la reerkii dhib baa ku dhacday dee ma seexan karayno iyadoo dee reerkii oo dhan la duubay waanu tagnay xeradii traafigaanu tagnay gaarigii baa lasoo qiimeeyey isbeer baarkii gaariga galay $400 baa lagu qiimey waxaa la yidhi ilaa $400 dhigtaan lama sii deyni walow odaygii islaantu ay ku joogeen damiino wakti loo qabtay oo la yidhi wakti ku keena markay wakti ay ku qabtaan waayeen ee odaygii dib loo xidhay $400 isbeer baarka oo aan gacantii ku jirin anaa bixiyey aniga ayaa bixiyey sidee bal reerkanuun u furfurmo oo macnow dee ilaan annagana cunta nooma dhadhamayso oo dee caafimaad kuma hurdi karayna dee waayo dee reerkii nagu xigay baa xaaladda noloshaas noocaasi ay ku jirtaa muddo dhanba xataa waxaa laysaga sii lahlaaday gacantii gaariga lagu samayn lahaa ayaa laysaga sii lahlaaday ugu dambayn adigu inantii gaariga waa u baxay xaaladaasina xarigaasina halkaasuu kaga furfurmay mararkan badan ee la xidhay islaan askaridu waxaa noo sheegtay ilaa ku dhawaad in la xidhay 7 jeer meelaha horta dhowr saldhig waa lagu xidhayoo iftin waa lagu xidhay macalin haaruun isaga tiraba meelahan intii lagu xidhay saldhigga dhexe waa lagu xidhay maxkamadda hargeysi annagoo doodayno oo maxay tahay dee u dagaalamayno oo isla inankii wuxuun ka rido oo war dee bal inankii inuu dhibaataysan yahay dareensiiya ayaa markii 2 qof la isur fadhiisiyey sidaanu u dhageysananay baa la xukumay 6 bilood baa la xukumay islaanta maalintaa waali ayay ku dhawaatay maalintii la xukumay hooyadii adigu xarigii inankii waa la isu tagayo waa loo iibiyey muu qaadan 6 bilood muu xidhnayn laakiin xukunkaasi wuu ku dhacay inta de maadaama 2 caruurina ay family yihiin qoys yihiin marna ma laysan inta la isu tago de inankuna si uu dhibaatada uga baxo 2 caruur isa siiya ama isu dhisa walaal de horta 2 caruura anigu family ahaan inanku ku ka soo jeedaan aqaani mid kalena waan arko inankii inantu la dhalatay habeenka aan ku leeyahay inanku aqal buu ku xidhnaa wuu nala joogay goobta inankii inantu la dhalatay oo isagana inaabtidii rumaahay inankaas habeenkaasi wanaagsan buu noola dhaqmayo ciidankii uu maagayo inantoodii uu maagayo ninkana waa walaalkaa buu yidhiyo qofaynu kala cadgoosanayna maaha oo laakiin xaaladda mar haddaan inantii rabitaan ka jirin maxamedow dee 2 qof oo israbaa laysu doonaa rabitaanku sayid keliyo aha dhinaca xamsu aha dee dhinacii hooda mar haddaan rabitaan ka jirin dee qofku qof aanu doonayn dee walaal dee looma qasbi karo dee
looma qasbi karo qofku faanu doonaynin ugu dambeyn jacaylka xamse maxaad ku samaynaysaa cid ku joogo jacaylkii xamse marna jacaylka xamsaan sifaynaya marna inankaa iyo marxaladiisa aan waxyar ka odhanaya mar jacaylka xamsaan sifaynayaayo jacaylka xamse waa laba uun nin baa layidhi dumarka warrano wuxuu yidhi waa u samir ama waa ka samir xamse jacaylka xamse waa inaan markaan anigu qiyaaso waxaan isleeyahay qof damboo dunida ku nool jeclaan maayo jacayl u nacay inankaa dee marxaladihii soo maray xataa walaalkii wuu dilay walaalkii wuu u dilo naftaba inuu ka gooyo damcay walaalkii oo dili jiray oo dee markuu inantan iska daa yidhaa kooma gelin jiray halkaasuu midi ka geliyey macnow walaalkii uma muuqan waxa u muuqday muxuu kuu leeyey hoodo iska daa maalin yaroo kalaan ku taabta ee xamse maalin baan u yeedho gurigaygaan qado ugu sameeyo waan waaniyo jirka maydhaan idho maryo nadiifaan siiyeyo meel baan seexiyey iyadoo duruuf aad u badani ka muuqato markaan seexday waa duhur markaan dhinaca saa dhulka u dhigay albaabkana waan quflay waxaan tiri bal maantaa seexdo markiiba waxaan soo toosay intaanan casarba tukan inankiian joogin guriguna wuu ii quflay ogow deerku ka dhacay aqalkana weliba taarka tuuga loogu talagalay ayaa ku meersan bal aduu halku ka dhacay sheeg aqalkaba dushu ka dhacay markaa xamse jacaylkiisu markaad i weydiiso ee leedahay xamse jacaylkiisa maxamed u malaynaysaa xamse haddii uu inantaa waayey dhibtii jacaylkaa ka soo martay waxaan filayaa inaanu wax dambe qalbigiisa jacaylku mar dambe ku soo noqon doonin kaasi waa taa talabaysaa maxamedow xamse duruuf nololeedoo uu ardaynimadii ka tegay buu ku nool yahay anuu iminka intii barnaamijkiisani socday anigoon daawan ayaan u yeedho waxaan ku ihi edo aan anigu iskuulkiina kaa bixiyo waxbarashadiina kaa bixiyo iskuulkiina kugu celiya si aad noloshii ula qabsato haya buu igu yidhi laakiin jawaab dambe iguma soo celin marka waxaan islahaa mustaqbal ahaan inankii dee waa ubadkaaga kale soo celi oo yaanu dee dibadda fadhiin inankii horta wuxuu u baahan yahay mustaqbal ahaan in noloshiisii la soo celiyo wuxuu u baahan yahay in xal loo sameeyo oo dee inankii hadduu maanta darbi jiifyada dunidu ku biiraya hadduu sanuu usii taagnaado ilma dee mustaqbal iyo hiigsi nololeed lahaana u ahaa iminka xaafaddii buu dhex mari kari laayo xaafaddu dhalinyaro yaroo dee carruuroo isaga ka yar bay leedahay waxay odhanayaan markuu halkaa marayo wakaa kii waa laaya naagta daba carari jiray tiimkiinan mm t v ee waraysanaya ee barnaamijka ka sameeyey idinka laftirkiina waxaanu doonaynaa inaanu waxidinla nidhaahno idinkala inankaa nagala qabataanoo dee idinku waad naga cod dheertiinoo waad naga aragti dheertiinoo dee waxaad tihiin ummadda u shaqaysa inanka mm t v kalena waa muxsinoo inan wanaagsan weeyaanoo maxamed cabdi sheekh waa nin aad u muxtaram oo dhallinyaradana aad u dhiirigeliya waxaan leeyahay inankaa bal dadka tababarada gelaya iyo maxay tahay si noloshii loogu soo celiyo inaynu ummadda muxsiniinta ilaahay wax siiyey wax u weydiino oo dee inankaa bal in dee inankaa maxamed waxu account iyo wax yar u sameeyo oo ummaddii wax loo weydiiyo sidii dee inankii noloshiisii dibudhis loogu samayn lahaa ifka dhagar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy la soco qaybteena toddobaad oo ka xiisa badan